Caruuray sheeko sheeko. Bari waxaa jiri jiray jiir iyo dabaco. Jiir ayaa maalmaha ka mid ah shiray, isagoo shirkiisa si wacan ugu jiro una u kala socda ayaa dabacadii geed ayay ugu soo gabatay. Markaasay dhegaysatay waxay ku wada sheekaysanayaan. Maalinkii koowaad jiirka si wacan ayuu shirkooda ugu dhammaaday. Maalinkii labaad dabacada wax la yaab leh ayay samaysay. Qoraxda ayay istaagtay iyadoo leedahay, qoraxda waa caafimaad baa laga helaa salaadii hore. Jiirarkanow shirkiina iska wata waxna dhibaataynaya ma lehe. Qoraxda salaadii hore caafimaad baa laga helaa. Dabacada ereyadaas ayay ku soo celcelinaysay. Jiirkii uu meel dhow uga dhawaay ugu maqlay markaasuu ugu imaaday. Markaasay maxay ku dhaheen jiirkanow dabacadanay maxaa u qaylinaysaa una qayli dhaaminaysaa dadkana u kicinaysaa hurdada naga soo toosisay. Maya wax kale ma jiraane shirkiina iska wata anigana kor baan iga ilaalin oo walaalihiin baan yahay. Jiirkii maalinkii koowaad uu tagay, markuu tagay midkiisa ugu dambeysay ayay qabsatay wayna cuntay. Maalinkii labaad si le'eg ayay samaysay. Jiirkii labaad ayay cuntay. Maalinkii saddexaad si le'eg jiirkii saddexaad ayay cuntay. Boqorkii ayaa fahmay jiirka in dabacadan in yar ay u dhammaynayso ayna rabto inay eber ka dhigto. Markaasay maxay ku dhahday jiirkan markuu iskugu yeeray muxuu ugu sheekay in dabacadan laga hortago ayna iska dhiciyaan si wada jir ah. Horaa loo yiri gacmo wada jir bay wax ku gooyaan. Jiirkii maalinkii dambe uu tashaday tashigii boqorku uu soo joodiyay isku raaceen. Markaas way ku heshiiyeen. Maalintii ugu dambeysay qorshe fiican ayaa loo maleegay. Qorshihii ayaa hirgelay. Kii boqorka ahaa ayaa ugu dambeeyay. Markaa kuwii kalena geed ayay fureen way ku soo dhaceen wayna dileen dabacadii xumay.